aysan dawladda wuxuu yiri anigu sababta awga dawladdan waa ka soo horjeeda waqti horeyna ahay hadda shacabkii baa ku gadaaman Soomaaligaas wala yaqaan laakiin intii itaalkayga waxaan goobayaa meel aan farka galiyo aniga intii ilaahay baa ku gadaaman meel fartu ka gaadha markaan heshaan ku fogeynayna intaas noo horeysay ninkii intaas noo horeysay hadal baan ku celiyay mawduucan hadda aan ka hadlayno baan ka hadalay markaas waxaan ku yiri hebelow hadda sidii uu sheegay walaalkay goodax qofkii citizenshipka yaa muwaadin Soomaaliya ah waa arrin mar dhow noo imaan doonta oo dastuuriya mar dhow bay noo imaan doonta waxaan ku yiri niyow dhageyso maalintii la gaaro taas inaan ka doodno yaan laga maqalin afkaagana yeysan ka imaan qalbi dhagax Soomaali ma maalintaas yeysan afkaaga ka imaan baan ku yiri wuxuu ugu yiri adeer waa siyaasad haddaan ku sheegayaa runta waxaan waa siyaasadan la isuguma turo waa hadaladiisii haddeertan sharciga qoraa oo ah inuu mawaadin yahaan adiga kugu dilaya macnaha ku dilaya xukuumadda tan laakiin berrito doodu markay timaado haddaan ku sheegayaa waxaan dhahayaa mawaadin ma waxaan rabaa marka wax meesha ku yaala inaan iftiimiyo ninka waxa ku dhacay anoo ka xun innaga oo dhan baa dhiiban xukuumaddii samaysantaba wax inta laga dhex eego danaad yaryar innagoo god ku jira dam ha socoto 3 bilood ha qaato hal dhis hal dumi wax maslaxado ku jirta lama arko xukuumaddaanu inay harjadayso waxaan hubaa kalsooni baan ku qabaa inta aan xogogaal u ahay khaladna laga hadlin mayo maslaxadii marka yaynaan ku mashquulin wax yar oo aan naf lahayn oo kooban oo madaxtooyada dhex yaal oo magac u weyn magac aakhara xisaab adigu sugayso u weyn wax yar oo aan naf lahayn mar walba qarannimadeena u dilno oo aan kici weynayna ku mashquulin aynu ku mashquulo codkeena iyo xukuumadda isla jira ummadii aan lahaa danteena ma hayaan oo dhan aan lahaa inay wajahno runta u sheegno cadowgeennana aynu wada abaaro aynu u midowno halkuna intaas ku jira santa horta su'aalo oo nala weydiiya jiraan rabaa bil ujaala insha Allah si degdeg ah inaan uga jawaabo si horta diyaaradaha UN-ka markii la raaciyo boarding passka halka kan markaan ka tagayay askari Ugandisa iga siiyay xagga markaan ka soo tagayana Ethiopia baan naga siiyay waana sheeko mar walba dhacda taas waa mid walaalkay su'aashiisii uu kaariyo weydiiyay sawirka aeroboorka galabta markaan ka soo tagayay waan u yeeray waxaan iri labada sawir oo halka kan suran hal macnay leeyihiin marka taa loo wada eego Soomaaliya maxmiyad bay ku jirtaa وقفك شرعي يقان وحوي محمية نيكي مسؤولك كاها إذا كي ومداس أدوبنا معنوه أيضا هاي انت ويا ما كوري انت أسوي ري انت النحين بوحي دهن مدح ريدا لا أدينا وانا ما تنطق انت سنتانا كجسو تقي فما تنتهي هذا ما سنتهي سؤال شورت أرنتا محلي ويدي بوسكي خيري فرماجدات جوكتو سيدان هذا ورقم العيد بوس كرت خيرية فرماجدان جوجو هرتا تبنبري مع عمسة سيو عمسة وكو لابو انت عمسين إني سجان مدحويني كلينك أنا وهلا يا دنا وكهلان أيضا إيجا مسؤولته وعن سمايلا قوان جيسينمو ومضي إن نتواري مع هذا واقل دمي قالت كان أنا كوداعي أنا لعب فيه هدانا ديار وهن حركنا إدين سي ودنا وإنك تجينا ومضي أيضا أصعب وأنا وأصعب الطمئن وأن تاجر سنهاي أنا كده وفايل مرك إلى هي قفسي مدرسة عرجينا هذا مرة كده بوصعد taasoo kale inay inta ku dhaqmaan ay sida hadda ay nolol dhaqmeen waana waxaan ka dhigay
arrinta ku saabsan heshiiska waa qeexisaan u malaynayo heshiiska 4 qof ah saxiixay 4 waa Soomaali 2 waa isku jufo qalbi dhagaxna waa joogay 3 sano la soo dhaafay magaalada Muqdisho tarabiyahan shacabku cabaayay kumaana dhiibin anagu qoladii dhiibtaa marka la weydiin doona tagitaanka jigjigo wada hadal annaga iyo dawladda federaalka Itoobiya dhaxmaray iyo maamulka ismaamulka Soomaalida aan ku tagna meesha dawladuna ma dirin magaalada Dhuusamareb aan diyaarad ka qaadanay jigjiga nagu dajiday markii aan soo laabanana magaalada jigjiga naga soo qaadeen waxay nagu soo celiyeen cadaado marka qaabka aan tagna qaabkaas oo ahaa dawlad federaalana nama dirin namana fangaraynin taytal waa wato wasiir ah sax xildhibaan aan ahaa laakiin hadda xildhibaankii wasiirka waxaan ku ahaa power sharing deegaana kala soo jeeday deegaankii aan ku matalay marka wasiir iyo xildhibaan labada taytalkooda waa watay laakiin labadaba waxaan ugu saxiixay deegaankii ee dawladda federaal wax quseeyo ma ahayn waana ka arinta oo xalka arinta xalka guddiga horta waxaa iskale maantana guddoomiyaha baarlamaanka waa sheegay oo markii hadda laga hadlayay xiritaankii baarlamaanka waa sheegay wuxuu yiri guddiga waxaa xaq u leh inuu soo magacaabo guddoonka annagana soo magacaabin guddiga horta ayaga soo magacaabi doon sheekadan oo wasiiradii laga dhigaayo guddigan wax micnaa hadda badan uu leeyahay lama arko guddigan waxaana sharciyad ma leeyihiin masama leh intaasay keenayaan iyadoo qaraarayna baarlamaanka soo celinaya waa qodobka koobaad tan labaadna waxa meeshan ku jira waxay tahay xukuumaddu qaladii ku dhac dembi inay nin muwaadina safrido go-aankii ay soo saartana dembi kaloo gud kale ay kusii dhacday ahayd xukuumadda annaga iskale waa xukuumaddanadii waa dawladdanadii qaladkii waa ku dhaceen waxa annaga aan ka rabno waxay tahay qaladkiina inay qirtaan mar dambana aysan u laabo sidii xalkiisa loo aadi lahaana annagoo wada jirna aan inta israacno golihii shacabka iyo senataradii iyo xukuumaddii si wada jira dalkanagana aan u badbaadsanno wixii naga khaldamana aan u wada saxno laakiin qaabka qariska tuurnimada oo hadda ay ku dhaqmayaan oo maalin dhoweed kalfadhigii baarlamaanka la yiri golaha shacabka yaan la fariisanin oo la saxiix oo haddana aqalkii sare inta u dhaceen ii sheeg baalka la yiraahdo ay yiraahdeen go-aan yaysa soo saarin aan ka codayno waraaqa ka saxiixno oo haddana maanta qaxootigi inta ugu tageen xeryahoodii basas lagu soo daadgurey ee la leeyahay kaalay ku mudaharaada baarlamaanka dawladnimana ma ahan sharafkii karaamana kuma jirto waa qariska tuurnimo qarankay ku dheelayaan waana ka qabayna ka joogaan leenahay annaga hil ugu ah wixii qaldam inaan inta saxno ku raacno dhahno hala toosiyo hala dabagal saaxiibkay dhowr jeer laga dhawaajiyay adiga xasarada ku hayda laakiin waa ku faraxsanahay xasaradii raggii doorta hadda ay ula jiraan leeyihiin waxba qaldan ayaga ku dabagambayna wax qaldana la saxayna waana ku taageerayna insha Allah ma tahay gooda horta intii su'aalaha weydiisay aad u mahadsan yihiin su'aalaha haddaan koobo jawaabdooda si kooban arinta walaalkeen qalbi dhagax wixii ku dhacay hadda caruurtaada ahaa lahaa iyo walaalka ahaa lahaa saa aragtaa Mustafa Cabdicaziz weydii waxa ii yiri muxuu ahaa senatarka marka inaan ku celiyana waxba waqtigan bay qaaminahay waa la yiri asal la maqlay marka waa la yiri macno weyn way waxa weeye intaas way mogta arinta oo Cabdicaziz ka dhawaajiyo mustaqbalka annaga wadamada dariska inaan nabad kula noolaano oo ay kaalin ka galaan qayb ka qaataan meesha aan naallo inaan ka kacno ayaan uga baahanaa mustaqbalka meeshaas ayuu jiraa waxay u baahan yihiin oo ayna weydiiyaana jiro oo dekada ah waa inaan siinaa waxay iyagu hayaan oo aan u baahannahaa jiro waa dad ma ogtahay soomaalida Ethiopia ku nool inay soomaalida Soomaaliya ku nool ka badan yihiin dhaqaalahoodu maanta fiican yahay ma haday ha ka gaarto mataqaanaa dadkeen u soo dhintay sida mataqaanaa sheekh xasan aabiis oo kale Allah naxariisto maanta dadkaasina la macaamilo iyaguna waa dalbaan annagana waxaa nala waajiba oo nala gudboon mustaqbalka inaan meeshaas fiirino ee aanan fiirin oo nalaf iyo jabhad inta ka socota iyo wax maalaayacni loo joogo maalaayacni waay oo nalaf inaan taageerno horey uma soo taageerin xukuumadii naga horreeyay ma taageerin waxa hadda naloo sheegaa wadaniyiin naloo ka dhigayna siyaasiyiintaan aan ka hadalnaa wado oo nalaf dan Soomaalida kuma jirto aan siyaad ninka ugu qoraha weynaa wadankan ahaa oo waxgaradka ugu weynaa ah oo wadanka inta badan wax soo taray weligiis ma ictiraafin marka
mustaqbalku wuxuu jiraa inaan wadamada Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia aan nabadna kula noolaano ummadda Soomaaliyeed qowmiyadda Soomaaliyeed oo 30 milyan gaaraysan xuduudadan beenta loo sameeyay inta la baabasho oo jabhaduhu ay dhinac walba ka cayaarayaan in inta la baabiyo la wada macaamilo oo dhaqaalaheenu kubco oo maanta meesha oo mataqaanaa aad looga dhawaajiyo aan ka kacno mustaqbalka meesha soo jira arinta dastuurka Ethiopia anu ma amaanin laakiin waa ku qanacsanahay inay ummadda Soomaaliyeed ee kun la nool u ogol yihiin inay go'aan haday u baahdaan shanta Soomaaliyeed raadinayeen macnaheedu ma ahayn shanta Soomaaliyeed oo hal meel wada degan ma aha shanta Soomaaliyeed xor ah la raadinaa xor waan xoroobay marka taasan kale yahay go'aan isku sheegi karo fadhi ku direeyay maqaayada waxa laga sheegay in heshiiskaas uu ku qoran yahay in ONLF la yiri waa terrorist ay ku qoran tahay mal fakana ana haay ma ay ku qoran tahay meel ma jirto waa dadka siyaasiyiinta warka ay u sheegeen dadka aan wax akhrin hal akhriyo heshiiskaas yani go'aanka xukuumadda gaartay wax aad u qurux badan waxa meel ay ku qoran tahay ma jirto waadan Soomaa waxay kood gareeyeen ay miin guuriyeen heshiiska walaalkay maad u soo galay oo dhahayo ONLF iyo shabaab waa argagixiso waa qoran tahay heshiiskii ku dhex qoran tahay annaga ma ku qoran annaga ma xoog uga saxeex waadan Soomaa waa kood gareeyeen waadan Soomaa waa iyadoo kood gareeysan ku tahay marka taasna waa iga iftiimin arinta muxuu ahaa guddiga maxay wax ka yeelayaan guddigu markay wax keenaan barlamaanku waa doodaa aakhirkan waa codaya codkooda meeshuu raaco ayay noqonaysaa marka taas waxa waa welwel badan ka qabin walaalkii Yuusuf waxa waaye waa guddigu waxbuu soo baaraya waxuu na hor keenaya markuu na hor keeno barlamaanku waa doodaya doodaasna coday ku dhammaanaysa codkaasna insha Allah cod Soomaali u danayna noqonaa markii ma dhici karto 270 inay wax isku raacaan xalka marka ana xalka waxaan u arkaa inaan hore u socono inaan siyaasiyiinta ka foojignaano inay shacabka laabtooda ay wareeriyaan inaan muxuu ahaa danteena aqoon waxaa yiri qofaan dantiisa aqoon mara duuga hortooda dhamaada meesha aan taaganahay oo aad looga dhawaajiyay meel xun waa ma sii qaada karno inaan dandarradan ku jirno ma sii qaada karno in qof siyaasi oo intuu dadka dhan hogaamiyo meel khalad ku hogaamiyo inta oo walaalkay mahad ka dhawaajiyay oo ziyaadada ka ah waa iska garanaysaan marka taas ani hadda inaan idin fasira ma waxaad si fiican u fahmaysaan waxa weeye nimankan candhuuftooda gadaal ha u liqaan xalkay ka mid tahay candhuuftooda gadaal u liqaan oo ay mataqaanaa xoogo iimaan yeeshaan aanan muxuu ahaa wax badan aysan siyaasaddu waa okay inay cayaaraan laakiin inaysan nagu taxtirin waxaan jeclaan lahaa xildhibaan goodax waad dhamaysatay aada u mahadsantihiin barnaamijka waqti badan uu socday dad badan oo jiraan barnaamijyada noocan oo kalea waa sii wadaynaa maxaa yeelay intii xalkama dambaysa laga gaarayo dadka Soomaaliyeed iyo madaxduba waa is horkeeni doonaa waa laga doodi doonaa xalkama dambaysa laga gaari doonaa waqti kalena waa qaadan doonaa haddii ay beedno waxaan jeclaa barnaamijku waa soo gabagabeynayaa waqtigaa nagu yar awgiis waqti kale xildhibaan aad heli doontaa xabab intaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka duubaab Axmed Xaashi waa kaaga mahad celinaya kasoo qaybgalka xildhibaan Goonjeex sidaas oo kale xildhibaan Goodax xildhibaan Mahad Salaad dhammaan kasoo qaybgalkiina caawa waa ku faraxsanahay waana sida aad xalka uga doodeen iyo qodobada caawa aad ka dhawaajiseen iyo dooda qaran ee Soomaaliyeed ee Soomaalida su'aalaha idin weydiin dadka dunida idinka daawanaya sidaas oo kale farsamayaqaanadii barnaamijka caawa gacanta ka geystay Qaalid Maki Muqasile Cabdiraxmaan Jaamac London Ali Naaji iyo Cabdullah Mudir iyo isku dabaridaha Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo aniga Cawl Daahir intaas
iyo barnaamij kale intaanu ka kulmayno dhammaantiin barnamaadiino